كلي صلاته نودويهن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين مروين إيو مدنيال مال كستو جوجتين حالة كستو كسوجنتهين سلامتي السلام كات وقيمة بدن باني نقول سلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى ونلاهي انت حنوصن الله عافيه انت دباتيسن الله دباتك كدل قادو انت جالش حق درده ugu jirta oo xasan roble ugu horeeyo iyo qaar kale oo badanna Allah ka soo daayo waxaan in yar isdul taagaya umada reer Jabuuti maxay ka taqaanaa محمد عوالة محمد صومالي وزيرك بيرها يقضالك جيبوتي maxay umada reer Jabuuti ka taqaana دور انتلك ايا isaga iyo inta mabriskiisa ku xidhanay ay dawladda u hayaan shaqada hay u qabtaan maxay tahay sababta aw Ismaaciil Umar Geelle aw u haysto ilaa maalinkuu kursiga ku fadhiistay madaxtooyadiisa intii horena wadanka isaga baa xukumay ilaa maalintii official ma uu ku fadhiistay ilaa maantadahan joognaay maxay tahay sababta aw u haystay Maxamed Soomaali waxa weey hawsha aw u hayo waan sii falanqayn doonaa culays weyn baan saarnay majliska iyo hawsha ka jirta inaan ogaano meel walba aan dhignay aparayo si aan u ogaano waxa ay qabtaan waxa uu idhaahdaa marka uu joogo majliska uu ku qayilayo wuxuu idhaahdaa xalay Ismaaciil Umar baa ila soo hadlay waa uu kacaa madaxweynaha hadda ila soo hadlay madaxweynuhu sababta uu maalin walba uu ula soo hadlo waxa uu hayaay maxay tahay in yar ayaan horta inila wadaagayaa sheeko ka dhacday majliska inkastoo taxanan iga dhigi doono oo inaas dhinacna uga baxsanayn oo imika markay ismaqlaan ha isbaaraan ha eriyaan majliska hala baaro war ilaa gudahaaga u facaatirahdid baan haddate aan heli doonay horta bal majliskaaga in yar dhageyso بيلي waxa waa wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya siyaasaddu ma lahin saamaxaad waa aan tire gebigeegu waan tire waxa loo wala socdo waa kala faa'iideysanaya wixii doonay ha noqotee ballanba waxbaa lagu ballamay ballankii haddii lagu buuxiyo ninkii odaygu iska dhiibay ballankii wuu ogolaaday ma haddii lagaga baxana muxuu sameyn qofkiisa iska celin maayo wax baabi'iniyo dumini maxay ka dhigan tahay waxa la baabinayo waa dawladda Soomaaliya wala baabin oo wala dumini أهل السنة iyo waxaan oo dhan annaga keenay oo sameynay ahlu sunna wa jamaa waxa weeyi waa argagixisada ay Soomaaliya ay ka seexan weeday waxa weeyi dadka Soomaaliya sida u laaqaya haddaba Maxamed Soomaali iyo inta ag fadhiday hawsha ay Ismaaciil Umar u hayaan waa dumitaanka dawladda Soomaaliya waa isku dirka farmaajo iyo dawladdiisa waa isku dirka farmaajo iyo wasiirkiisa Beyle
ahlu sunnah iyo jamaaca waad maqlayseen codkaasi waxa uu ka soo baxay majliska maxamed Soomaali oo isaguna u dhex fadhiyay oo hadallada laga maqlayo iyaguna waa is garanayaan inta hadlaysay markaasi maxamed Soomaali waxa uu u qaabilsan yahay dumitaanka dawladda Djibouti ay u dirsatay burburka Soomaaliya argagixisada ahlu sunnah iyo al-jamaacana waa ninka maqlaya waa codka la hayo oo labana garan waayeeyo ninka marna uu kaga jiro codkiisa iyo meesha uu ka soo baxayna wala iska garanaya inta iyo in ka weyn wana inii soo wadna waanan inila wadaagi doona han isku dayo waan tiri gebigeegu waan tiri si fiican dhageyso Allah wala socdo wala kala faa'iideysanaya wixii doonay ha noqotay ballanba waxba lagu ballamay ballankii hadii lagu buuxiyo ninkii odaygu iska dhiibay ballankii wuu ogolaaday ma hadii lagaga baxana muxuu sameeyay qofkiisa iska cilmaayo wax uu baabi'inayo dumini ay ka dhigan tahay wala baabi'inayo sagal iska gali أهل السنة يا واحد أنا كان ولا بابين أو أنا للدميني واحد لبابين يو إلى الدميني والدولة الصومالية عضتك أو دم يسترنا فيديو بنكسمين دونا أو وانسودي جدونا وحوي أن عديناها أين بدن بنورنجرني دولة جيبوتي burburka dawladda Soomaaliya horseed bay u tahay laakiin wax badan aan haynay oo haddana wanika maqlaya mas'uuliyiintii waa gurigii waa majliskii maxamed Soomaali waxa uu codkaasi ka soo baxay codka iyo codad kale oo badan haddaba waan fahanaa hadda وزير كاسي إن أو وزير ضد قابلسن أمبرهر قابلسن أو دولة جيبوتي كجرح أما الشقية مواطنين ترير جيبوتي بدي جيبوتي أي شاريتوية الشينو هردن بارنا يان ومدي جيبوتي أي مالي والبصوت دو بيسا أو فيديو يك عبادس دمانتين واتكدرك سنيدين هول إن أبخ دباتة كجرتي شاليتيد الشينها ان بيلي اذا ودنك كجرته وحيالها يودن او كمقن yahay waxa la oran karaa waa wasiirka u qaabilsan Soomaaliya Ismaaciil Umar markaasi sababta uu hayana oo ugu dhajisan yahayna waa burburka iyo dhibaatooyinka gacan ku dhiglayaasha ay ka wadaan ummadda aan walaalaha nahay ee dalka Soomaaliya wanaad maqlaysiin waxaan abuuranayna maaha waa wax maxkamad walba kula tiigsan doono waa wax cadeynteedii meel walba han ula soo joogsan doono waanan u dirnay dawladda Soomaaliya iyo dadka ay khuseysaba email ayaan ugu dirnay codadka inta toos qaabilsan waxa kale isku dirka wadanka dhexdiisa laga wado dagaaladii ka dhacay xaafadda Vietnam labada qowmiyadood ay isku laayeen waxa ka dambeeyay maxamed Soomaali oo iyadana han codadkeygii hana nila wadaagi doono waxa weey markaasi isku dirka ummadda reer Djibouti burburka Soomaalida iyo kala qaybinta ayuu u qaabilsan yahay Ismaaciil Umar Geelle si uu meeshaas u sii joogo wanika arkaya haddaad isweydiin jirteen maxaa uu u fadhiyaa meesha
wanika arkaya waanan inila wadaagi doonaa cod kasta oo ka soo baxa gurigaas annagoo hubna maanta inaan provincial suffison yahaysano kuwa kalena ayna waxba ka qaban karayn